sharaf bay tahay runtii shirkadii ugu horeysay ka soo jawaabtay inay Sam Cable tahay. Bulshada wax ku iibinaysa dooxa weyn iyo goobaha kale ee waxyeeladu ka soo gaadhay dabkii suuqa Waaheen ee magaalada Hargeysa ee aan haysan waxay isaga dhigaan cadceedda ama milicda ayaa shirkadaha Sam Cable iyo soo waxay gaarsiiyeen dalaayada iskaga dhigayaan milicdaasi. Madaxa waaxda xiriirka dadweynaha ee shirkadda Sam Cable Cabdirasaaq Xasan Rakuub ayaa waxa uu ka warbixiyay deeqdani waxaana uu sheegay inaanay noqon doonin deeqdani tii ugu dambeysay. shirkadaha Sam Cable iyo soo maanta waxay deeq hordhaca keeneen oo dalaayado ay ugu tala galeen dadka hiliblayda iyo khudradlayda bacadlayaasha oo aanu shalay dhawaaqooga dhageysanay ahaa inay bacadka waxay ka harsadaan ay waayeen stoorkii baan tagnay intaan aanu ka soo helnay deeqdani tii ugu dambeysay noqon mayso. xalay toole waxaa hadlay mulkiilaha shirkadaha MSG Group oo warbaahinta la hadlay oo fariintiisa la wada arkayay xog haye iyo dawladda hoose iyo Sheekh Maxamed iyo xildhibaan waxa aanu sheegaynaa inaanay tan tii ugu horeysay ahayn laakiin ay tahay maxay ahayd tii ugu dambeysay aanay ahayn laakiin ay hor dhac tahay dhiig qaboojin tahay aanu isleenahay bal intaad imika hadda stoorkiina taalay dalaayada ah ee aad ugu tala gasheen bulshada bacadka siiya waxaanu qayb weyn ka qaadan doonaa dib u dhiska maxay ahayd suuqan waxaanu ka mid nahay shirkadaha ugu waaweyn dalkani ku taamayo dadka lagu tashanayaanu ka mid nahay doorkayga waa ogsoonnahay doorkaygu waxa weeyaan cid kastoo dhibaato soo gaadhay inaanu murugada la qaybsanno. sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay xildhibaan Barkha Jaamac Batuun xogayaha dawladda hoose magaalada Hargeysa iyo Sheekh Maxamed Cali Galle. waxaan u mahadnaqayaa shirkadda weyn Xaaji Maxamed shirkadiisa saan u mahadnaqayaa maanta runtii Xaaji Maxamed Abu Saciid maanta gurmadkii ugu horeeyay iyo shaygii ugu muhiimsanaa oo dadkii ay wuxu yar hadhadheen milicda iyo dooxa la fadhiisay wixii ay milicda ay ka hadhaysan lahaayeen ula soo gurmaday ula soo cararay waa ugu mahadnaqaynaa. waxaan u mahadnaqaynaa shirkadda Sam Cable maamulkeeda Cabdirasaaq Xasan Rakuub Sheekh Cabdirasaaq iyo mulkiilaha guud oo runtii Maxamed Abu Saciid oo isaguna ah hanti ummadda Soomaaliland ay isaga iyo hantidiisuba ay leedahay. shalay toole dhowr iyo 10 xildhibaan baan suuqan ku nimid dadaal badan oo dawladda hoose ay wado oo har iyo habeen bay taagantoo heegan ay tahay hawlaha ummadda markaanu aragnay iyo dadaalada xukuumadda xildhibaan ahaan waxaanu soo eegnay dadka bacadka yaala baaq baanu dirnay sharaf bay tahay runtii shirkadii ugu horeysay ka soo jawaabtay inay Sam Cable tahay. dhammaan waa mahadsantihiin shirkadda weyn Maxamed Abu Saciid ama soo Sam Cable deeqda yaro kooban ee imaka emergency-ga ah oo runtii ay ugu tala galeen ama ay ka damqadeen dadkeennii jilicsanaa ee hiliblayda iyo khudradlayda ah ee ilaa hadda bacadka wadhan runtii waxaan leenahay jasaakallah khayr ilaahay shirkadda iyo xaajigaba ha ka abaaliyo. qaar ka mid ah hooyooyinka la gaarsiiyey dalaayadahaasi ayaa u mahad celiyey shirkadaha Sam Cable iyo soo. anigoo Saynab Aadan Cabdilaahi oo dadkii halkan alaabooyinku ay kaga gubteena hooyo waan idin mahadnaqaynaa janna firdawsa harsada insha Allah wixii aad taakuleynad nagu dhaantaana dawidi ka maanta durba noo keenay wixii kalena insha Allah way daba socon doonaan waan idin mahad celinaa. qorax baan fadhiyay Allah mahadaas iskale waa la yimi waa la qoray dalada salasiiyay ilaahay baan mahadaas iskale alxamdulillah rabbil caalamiin. Guulad Cunaabi MMTV.